Gary Neville oo ugu dambeyn soo dabcay iyo aragtida cusub ee fursadda Arsenal ee Premier League ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawada haddii aad marka hore soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso sidoo kale aad soo follow gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada halyeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa u muuqda mid ka soo dabcay aragtidii hore uu ka haystay kooxda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League sanadkan. Arsenal ayaa haatan 8 dhibcood hoggaanka kaga haysa Manchester City oo kulan baaqi u yahay iyadoo kulamo tirsan xilli ciyaareedka ka harsan yihiin. Manchester City ayaa maalinta Sabtida 4-1 ku xasuuqday kooxda macallin Jurgen Klopp ee Liverpool oo marti u ahayd balse waxaa waqti kooban kadib guul 4-1 iyaduna kaga jawaabtay Arsenal oo Leeds Emirates Stadium kula ciyaarisay. Gary Neville ayaa hore u diidanaa aragtida ah in Arsenal horyaalka ku guuleysanayso xilli ciyaareedkan isagoo markasta u saadaalinaya kooxda Manchester City. Gary Neville ayaa haatan u muuqda mid tanaasul sameeyay wuxuuna sheegay inuu hadda konton u arko fursadaha labada kooxood balse haddii Arsenal toddobaadka dambe ka soo badiso Liverpool oo ay u martinayso horyaalka gacanteeda uu ku jiro waa konton maskaxdaydu waxay hurtay in Manchester City ku guuleysanayso horyaalka 6 ama 8 toddobaad ka hor ayuu Sky Sports u sheegay Gary Neville. dhab ahaan waxaan filayay in Arsenal waqtigan marka la soo gaaro dhibco lumin doonto oo aysan joogi doonin halka ay joogaan balse hadda waxaan filayaa inay konton tahay ayuu yiri. wax kasta anigu kuma xiraayo kulanka Liverpool balse tababarahaygu wuxuu oran jiray haddii xilligan sanadka aad ku guuleysato Anfield waxaad ku guuleysanaysaa horyaalka haddii Arsenal Anfield tagto oo ay ku soo guuleysato waxaan oranayaa hubaal waa horyaalkoodii.